shirkan oo 6 maalmood qaatay ayaa ugu dambeyn ay ku kala tageen madaxda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada iyadoo aysan wax natiijo ah ka soo bixin 5 bishan May ayuu soo bilowday shirka oo uu gogashiisu dhigay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani qodobo badan oo si oo dhaca shirka looga helay ayaa soo ifbaxay kadib markii lagu kala tagay shirka qodobo ay kamid ahaayeen sharciga doorashooyinka batroolka arrimaha galmudug maqaamka magaalada Muqdisho iyo qodobo kale ayaa shirka la isku mari waayay madaxweynayaasha galmudug iyo Jubbaland ayaa isaga baxay shirka iyaga oo ka soo duulay garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshir ee magaalada Garowe Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in aysan waxba ka soo bixin shirkii Garowe balse uu rajo wanaagsan ka muujiyay in fadhiyo kale la isugu imaan doono bisha May waxaan ka baxaynaa magaalada Garowe waxaa soo gabagaboobay shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka kaas oo runtii ku dhamaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa Soomaali baa leeyahay waa la isu tagi doonaa midna waa la heshiin doonaa maray taaba laakiin hadda nasiib darro dowladda federaalka haba yaraatee wax jixinjaxa ama garowsha ah oo wax laalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid yahay arrinta galmudug oo aad ogtihiin xaalkeeda oo ay aad iyo aad maaragtay gardarre iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka midii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga xunnahay intaas oo dhan dowladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaalin kaa baarlamaanka ha yaalleene midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo cod ay ka dhacdo Soomaaliya ayaa la badiyay wax kaloo badan baa lagu daray waxaa la geeyay xagga waxayna ballantu ahayd arrimaha kale oo in laga tashado meesha waxaa ka socda wada tashi la'aan waxaa kaloo aad iyo aad looga hadlay maqaamka Muqdisho oo dad badan oo Soomaali ku nool yihiin wax ugu garan lahayn wax doorashaan aan lagu qaban bal in wax uu loo sameeyo taasina waa wax ummadoo dhan u yaal dadka reer Muqdisho gaar ahaan u yaal in laga hadlo oo dhowr milyan oo qof ay xuquuq la'aan noqoto ama aysan doorasho gelin waa arrin fiican maaha marka arrinta intaas waa intii kalena qoraal bay ku baxday waad akhrisan doontaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa degdegsanahay ummadda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ugu guubaabinayaa inay fadhiga ka kacaan oo sidaan dalkii ugu dumay waana baaba'aya in wax laga qabto oo ummaddu isugu timaado caqliga la isu geeyo ayaa loo baahan haddii caqli la waayo sidaan lagu sii socdo dalku wuu dumayaa qarannimadina way lugaysaa maanta waxaa ka fiican dhowr iyo sagaashanaadka ayaa dalku ka fiicnaa oo ka nabad badnaa oo waad aragteenoo magaalada xawar baa cashuurtay waxaa qaadanaya shabaab bakaalahay ka qaataan cashuur maxkamadaha ay wax ku kala xukumaan xawar weynay ku yaalleen aad iyo aad bay nasiib darro u tahay dadka ayaa loo baahay arrinta inay ka dhiidhiyaan isla dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dib ugu laabtay magaalada Kismaayo isagoo isaga soo tagay shirka wada tashiga ee ka soconaya Garowe ma jirto wax war oo ka soo baxay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan shirkii ka soconaya Garowe ee lagu kala tagay Wafi General Trading Company waxay ciidda sanadkan ilmahaaga u keeneen dharka Amira Collection ilmihii loo gado dharka Amira Collection baa farxad ku ciidi karaya